kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay ee guud ahaan dhacdooyinka caalamka muuqaalkan inta daawanayso waxaan ku soo gudbin doonaa bariga dhexe oo ololkiisa uu baxayo iyo Iiraan oo laba jibaartay duqeymaheedii bartilmaameedka xilligan idin la hadlaya waxa gubanaya saldhigyo military oo Mareykanku ku leeyahay qaybo kamid ah wadamada qaliijka carabta halkee ay saldhigyadan sida gaarka ah ay ugu yaalaan muuqaalka ayaa kula wadaagi doona waxa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo xaalka ku xumaaday kadib markii militariga Mareykanka shalay isku dayeen inay la wareegaan marinbiyoodka Hormuz iyo jab culus oo halkaasi ka soo gaaray waxa sidoo kale muuqaalka ku daawan doontaan ra'iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu oo fariin codsi ah u dirsaday Iiraan hadaba fariintaasi maxay ku aadaneed yaasoo loo diray muuqaalka ayaa ku faahfaahin doona haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeenana fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kala xiga haddii aad subscribe inoo tahay inoo share garay like inoo saar si uu gaaro asxaab badan waad ku mahadsantahay daawashadaada aynu ku bilaabno xaaladda guud ee bariga dhexe ayaa sii xumaanaysa maalinba maalinta ka dambeysa kadib markii Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan ay isweydaarsanayaan gantaalada nooca ridada dheer oo midka kale uu bartilmaameedsanayo saldhigyo muhiim ah Iiraan ayaa u muuqata mid laba jibaartay duqeymaheedii bartilmaameedka iyadoo si gaar ah u bartilmaameysato diyaaradaha uu leeyahay Mareykanka gaar ahaan kuwa dagaalka kuwoodii ugu dambeeyay waxaa xusid mudan in saacadii la soo dhaafay Iiraan ay soo riday diyaarad dagaal uu Mareykanka u leeyahay iyadoo halkaasi Mareykanka uu ka soo gaaray jab aad u xoogan iyo sidoo kale khasaare badan oo hantiyadeed diyaaradda ayaa waxaa la sheegay in lacagteedii ay ahayd malaayiin dollar sidoo kalena la soo tabinayo inay saarnaayeen hub culculus oo loogu talagalay in Iiraan lagu daqeeyo Iiraan ayaa la sheegay in diyaaraddaasi xogteeda ay heshay kadibna hawada ay ugu hortagtay oo iyadii naftirkeeda ay dhulka ay ku soo riday Mareykanka ayaa markan waxaa soo gaaraya jab aad u culus oo kaga imaanaya dhanka Iiraan maadaama markii hore Mareykanka uu bilaaway daadaansi ah inuu ka baxay heshiiskii xabad joojinta ee muddada 60 maalmood ee ay ku heshiyeen Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka isla markaana ay kala saxiixdeen Iiraan waxay bilowday inay qaado talaabooyin kale ay iskaga difaacayso Mareykanka iyo sidoo kale Israel oo isku dhinaca inkastoo Israel dhawaanahan ay ka gaabsanayso inay ka barbar dagaalanto Mareykanka oo ay sheegeen in aysan qayb ka ahayn dagaalka marka la ka soo cusboonaaday bariga dhexe ee uu qaaday Mareykanka isla markaana lagu duqeeyay Iiraan dhinaca kalena haddii aan eegno saldhigyo ku yaala qaybo kamid ah wadamada qaliijka carabta ugu horeeyo Bahrain iyo Kuwait ayaa xilligan idin la hadlaya waxay yihiin kuwa gubanaya iyadoona Iiraan ay la bartilmaameysatay hubka culculus gaar ahaan kuwa ridada dheer ee diyaaradaha lagu hago wararka ayaa waxay tilmaamayaan in saacadihii ugu dambeeyay Iiraan ay qaadaysay talaabooyin ka dhan ah Mareykanka iyo sidoo kale wadamada qaliijka carabta waxaa xusud mudan Iiraan markasta oo weerar lagu qaado ay si aad ah u bartilmaameysato goobaha muhiimka gaar ahaan saldhigyada military ee Mareykanka ku leeyahay wadamada qaliijka carabta iyo sidoo kale bariga dhexe intuba waxaa la sheegay in dhowr gantaal ay ku garaacday saldhigyo Mareykan oo muhiim u ah oo ku yaala Kuwait iyo sidoo kale Bahrain waxaana la sheegay in ololkoodii uu baxayo isla markaana digniin ay soo saartay iyadoona ugu digtay in dadka shacabka ah ay iskaga fogaadaan goob walba oo saldhig military uu ku leeyahay Mareykanka Iiraan oo sheegtay in ay bartilmaameysan doonto oo marnaba aysan ka gaban doonin Mareykanka talaabo walba oo qaadana ay la qaadi doonto madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump haddii aan eegnana waxaa ku xumaaday xaalka maadaama wajigabax uu kala kulmay Iiraan uu filanayay in haddii uu kaga baxo heshiiskii xabad joojinta ay fariisan doonto isla markaana waxa uu xilligan uu indhihiisii ku arkayaa in Iiraan uu u bariyay waa cusub oo dagaal ah maadaama si nabad ah ay ku aasteen hogaamiyihii ugu sareeyay Ayatollah Ali Khamenei kaasi oo ku geeriyooday weerar Israel iyo Mareykanka si wadajir ah ugu fuliyeen gudaha dalka Iiraan
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa qalbijab ka qaaday kadib markii dhowr saldhig oo muhiim ah oo ku yaalay wadamada Khaliijka Carabta dhulka ay ku dartay Iran sidoo kalena diyaarad muhiim u ahayd Mareykanka ay soo riday. xilligan waxa uu wajahayaa xaalad aad u cakiran iyadoo wararku qaar ay tilmaamayaan in xaaladiisa caafimaad aysan wanaagsaneyn. shalay waxa ay sameeyeen ciidanka Mareykanka isku day ah inay la wareegaan marbiyoodka Hormuz iyagoona weerar halkaasi ku soo qaaday. waxaana halkaasi ka dhashay dagaal toos ah oo u dhaxeeyay ciidamada Mareykanka iyo sidoo kale kuwa Iran. waxaana ka dhashay khasaare hantiyadeed iyo mid nafeed intuba inkastoo labada dhinac weli aysan wax faahfaahin ka bixinin khasaaraha rasmiga ee labada dhinac soo kala gaaray amaba aysan faahfaahinin bayaano aysan ka soo saarin dagaalka ka dhacay halkaasi iyo khasaarihii u dambeeyay ee ka dhashay. wixii xogay macluumaad ee qodobkaas ku soo kordho muuqaaladeena xiga ayaad ku daawan doontaan dhinaca kalena haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa la soo tawinayaa in fariin qaas ah oo u diray hogaamiyaha ugu sareeya ee dalka Iran isagoona la sheegay fariintaasi in uu qoray isla markaana ay ku socotay hogaamiyaha ugu sareeya ee Iran. waxaana la soo tawiyay in fariinta ay ahayd mid Iran looga dalbanayo in ay joojiso weerarada ay la bartilmaameedsanayso Israa'iil isagoo sheegay in markaan ra-iisul wasaaraha uu bari uu ka yahay amaba uusan ka warheelin weerarkii Mareykanka uu ku qaaday Iran. Iran ayaana ahayn mid hadaladaasi dhag jalaq u siisa oo Iran Israa'iil iyo Mareykankaba waxay ugu jiraan hal goob oo kaliya waxayna bartilmaameedsataa goobaha iyada ay u aragto inay muhiim u yihiin labadaasi wadana. Xuutiyiinta Yemen waxay ku hanjabeen in haddii mar kale Mareykanka uu weerar fuliyo ay qaadi doonto weerarkeedii ugu dambeeyay iyadoo toddobaadkan gudihiisa markii uu bilowday amaba Mareykanka uu duqeeyay Iran ay qaadeen Xuutiyiinta Yemen weeraro iyagoona dhowr gantaal ah ku dhuftay goobo muhiim u ahaa Israa'iil iyo sidoo kale Mareykankaba kuwaas oo ku yaalay bariga dhexe. xaaladda guud ee bariga dhexe xilligan waxay tahay mid aad u qasan iyadoona maalinba maalinta ka dambeysa xaaladda ay sii xumaanayso. Mareykankana ma uusan joojinin duqeymihiisii bartilmaameedka ee Iran sidoo kale iyadana ma aysan joojinin oo waa ay laba jabartay duqeymaheedii iyo dagaalka tooska ay ku qaadayso saldhigyada waaweyn ee Mareykanka iyo sidoo kale goob kasta ay u aragto in uu muhiim u yahay. waxayna Iran ay wacd ku martay in dagaalka markaan uusan noqon doonin mid waqti yar ku soo dhamaada isla markaana aysan diyaar u ahayn in wax wada hadal ah ay la gasho Mareykanka iyo sidoo kale Iran intuba heshiiskii marbiyoodka Hormuzna ay ka baxday oo wax markab shidaal ah halkaasi uusan mari doonin ilaa ay markab ay fasaxdo Iran oo ay ka qaado lacagaha canshuurta oo ay sheegtay in ay iyadu maamulanayso. xaalad ugu cakiran ayaa waxay ka taagan tahay marbiyoodka Hormuz maadaama Mareykanka Israa'iil iyo Iran bay u arkaan inuu yahay goob aad muhiim u ah isku socodka maraakiibta shidaalka oo 95.5% halkaasi ay maraan. waxaana xaaladda ugu culus ay ka taagan tahay marbiyoodka Hormuz waxaana la isku mari laayahay sidii loo kala badbaadin lahaa maraakiibta shidaalka wada ee ka baxa marbiyoodka Hormuz iyo sidoo kale Iran waxay wacd ku martay in marnaba aysan dhaafi doonin markabkii jabiya amarkeeda. xogaha soo dhameystiran wuxuu ku soo kordho muuqaaladeena xiga ayaad ku daawan doontaan haddii ay tahay markii ugu horreysay uu ku soo gaaro muuqaalkeenana subscribe inoo dhig gambaleelkana fursa ee ku soo gaara muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahay inoo share garay laakiin noo saar si uu gaar saxaab badan waad ku mahadsantahay daawashadaada. 8 daqiiqo ku dhow